caagadii aan biyaha ka cabay waxa la caagadaas aad tusaysaa eeg qofka warsan tashiilku wuxuu ku oranayaa ee indhihiisu ay wax fiican qabtaan ilaa halkaas buuxda biyihiisu indhihiisu waxay arkayaan inta biyo ku jiraan ka kale bisimistiga ama warxuma tashiilkana indhihiisu waxay arkayaan inta maran daatana wuxuu waxaan maqli jiray waxa la yiri macallin carab la ila carab laantu waa wixii Ilaahay sameeyo ama gacan baa beeli karaa ama il ama laakiin de marka shaqadaadii ku haboon bay loo jeedaa inaad doonato macallin carab la oo qof beel buka carab leeyahay daabaha kaga leeyo waa yar qabta hadalkeed ayaa la yiri ayaa ku yaro lix jir ama shan jir quraan u dhigay baa leeyo markaas uu yiri waa raadi ma oran karo kii yaraana way ibiteed garanaya wuxuu ka daba oranayaa dabeetana buu garaaca wuxuu xidhaa waan carab leh adigu raade si aanay u dhicin taasi si aanay u dhicin qofka carab kalena waa muwaadin ilaahayba waana qof waliba baahi gaar ah jirta waxa weeye laakiin de shaqada ka duwan ayaynu u abuuranaynu haynaa marka regulate gareynta in ay dawladdu regulate gareyso si wada jira loo regulate gareeyo cid waliba ku talagal waa settlement halayana waa settlement hada hargeyso dhan inta waa settlement baa la qoriya 1500 iskuuladu intee ku rursay inteebaan iskuul lahayn marka aynu meel iskuul ka dhisayno waa inuu jiro tamarteen iyo energy-ga marka isku darno standard prioritization weight aynu naqaano halkeeba ugu baahi badan weerista inoo eegayna tirada dadka halka ku nool iyo distance-ka the closest school uu jiro waxa kale oo kamid ah meelaha ay tahay inuu xoog saarno si madaxdii iga horeysay sheegeen meelaha lagu baranayo aqoonta ku haboon aqoon waliba way haboon tahay laakiin ku haboon suuqa shaqada ee Soomaaliland maanta jooga ay ka mid yihiin wax ay ka mid yihiin farsamada gacanta iyo tiknoolajiyada ilaa inuu helo PhD tamaanada ku takhasusay meel waliba hesho iyo PhD ku takhasusay horticulture nooc ka mid ah wali we are long way to go